بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أيها الإخوة الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. walaalayaal siirada nebigeena moxameda sala allahu calayhi wasalam, waxaan usbuuc hore aan ka soo hadalnay baycatu alcaqaba aluulaa, cahdigii alcaqaba la odhanayay ee ugu horeeyey uu nebigu la galay calayhi salaatu wassalaam. dad ka yimid yasrib, madiine ka yimid uu nebigu la galay calayhi salaatu wassalaam. 12 qof bay ahaayeen. 12 buu nebigu ballan la galay inay diinta u nusreeyaan ee u gargaaraan. cahdi adag ayuu la galay. sanadku wuxuu ahaa sanadkii 11aad ee nebinimada ayuu ahaa. yacni nebigu da'diisa waa imse jir markaa? waa imisa? 51 sano weeyaan. 40 waa lagu soo saaray nebiga, 11 sanona waa nebi ayuu yahay. 11 sano ayay nebinimadu ahayd. nebigu ballan adag ayuu la galay, cahdi inay u gargaarayaan diinkiisa, ay u nusraynayaan. nebigu wuxuu raaciyey calayhi salaatu wassalaam awal safiir oo islaamka ah ayuu ah, magaciisa muscab ibnu cumayr. inankaa yar buu raaciyey nebigu, uu ku yidhi reer madiina raac, diinta bar. waxaa loo sii gogal xaadhayaa imaantiga nebigu u iman doono calayhi salaatu wassalaam madiina. sanadkii 13aad ee nebinimada, yacnii wiilkii yara muscab, saxaabigii muscab, madiinuu tegey, nashaad buu muujiyey. inay ka soo hadalnay sacad ibnu intuu raggii urursaday uu raacay inuu nashaad u bilaabay radia allaahu canh. waxaa yimid sanadkii dambe 70 qof baa yimid xajadii. yacni carab oo dhan waxay u soo xajiyi jireen maka, u soo xajiyi jireen. madiine waxaa ka yimid 70 qof oo muslima ayaa yimid. dabcan waxaa la socda gaalo badan oo mushrikiina la socota, laakiin inta muslimiintii waa 75 yaa lagu tilmaamaa ayay ahaayeen. xajadii bay yimaadeen, dhexdoodii bay kulmeen, si sir ahaana u kulmeen, way tashadeen. waxay yidhaahdeen nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam, maxaan ugu gargaari laanahay? nebiga daa'ifaa lagu shiiday calayhi salaatu wassalaam. markaa nebiga lagu eryanayaa oo dacwadiisii buu qarsanayaa nebigu calayhi salaatu wassalaam. ma muujisan karaya. asxaabtii waxay ku jiraan cadaadis baa lagu hayaa. nebiga maan u gargaarno oo niraahno nebi allow noo kaalay, annagaa ku soo dhowaynaynay. nebiga calayhi salaatu wassalaam ballan bay la galeen inay la kulmaan habeen ayaamu tashriiq, maalimaha la yidhaahdo xajada la jooga, dhagax tuurka. maalin bay la kulmeen. waxay dhahaan nebi allow caawa ballan haynoo ahaato sak dhexe, markay raggii aan la soconnay ee mushrikiinta ah marka ay seexdaan baan kuu imanaynaa sak dhexe. ballan baan nebi allow aan gelaynaa. waayahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam. habeenkii sak dhexe markay ahayd, ayaamu tashriiq ayay is urursadeen. waxay kaxaysteen nin aan weli soo islaamin oo la yidhaahda cabdillaahi ibni camr ibnu xaraam la yidhaahdo. waa 70 laba haweenaa ku jira. odaygaasi wuxuu ahaa nin la yaqaano madiina oo raggii madaxda ah ayuu ahaa, sharaafta ahaa. nin caqli badan buu ahaa. ninkiibay gaar u la baxeen. waxay yidhaahdeen nin waxaa tahay caqli badan, waxaan u soconnaa oon caawa rabnaa inaan maxamed la kulanno,
dacwada uu wado waa dacwo caynkaasa diintii bay u sharxeen ninkii waa islaamay isagiina way ka haysteen sakh dhexe markay ahayd ee raggii odayaashii ay seexdeen ayay meeshii ay nebiga kula ballameen calayhi salaatu wassalaam ayay tegeen habeenka marka 3 qaybood loo qaybiyo qaybta dambe ayay la ballameen waa waqti sakh dhexe ayna dadku tooseen weeyaan nebiguna calayhi salaatu wassalaam meeshii buu yimid wuxuu soo kaxaystay nebigu adeerkii alcabaas oo gaal ahaa oon weli soo islaamin ayuu soo kaxaystay nebigu calayhi salaatu wassalaam meeshii ayuu la kulmay dhowr iyo 70 iyo 2 haweena ayuu nebigu kula kulmay calayhi salaatu wassalaam meeshii markii la isku yimid ayaa hadalka waxaa bilaabay cabaas nebiga adeerkii ayaa bilaabay wuxuu la hadlayaa reer khasraj aws iyo khasraj qabiilkii madiine ka yimid dhowr iyo 70 ayuu la hadlayaa waxa uu ku yidhi reer khasraj oo is dhagaysano maxamed waxaad garanaysaa nin sharaf leh inuu yahay agtayada oon jecelnahay adeeradiina waan nahay qoomkiisa annagaa ka difaacayna oo ag jooga annaka oo ku khilaafsan diinka uu wato laakiin loo dhowaani maayo inta aan nool nahay maxamed waxa uu doonayaa in uu ballan inila galo sidii xaggiina ugu soo wareegi lahaa madiina sidaa awgeed haddii aad ballanka aad la gelaysaan ood ka soo baxaysaan si adag aad uga soo baxaysaan waan inagu aaminaynaa waan inii ogolnahay haddaynu ballanka aynu ka soo baxayn ood imikaba hadal keeni doontaan hadhow toole iniima ogolin ee imikaba waxaad haysaan sheega odaygii intaa markuu sheegay cabaas kacab ayaa waxa uu yidhi waxaanu ku nidhi nebiga u xiisayaan calayhi salaatu wassalaam waa markii ugu horeysay nebiga arkaan inuu hadlo ayay doonayaan aragtidiisa khalaas way arkeen waxay ku yidhaahdeen waxaan rabnaa inuu isaguna hadlo nebi allow hadal bay yidhaahdeen waxaad jeceshahayna ku hadal nebigu wuu hadlay calayhi salaatu wassalaam aayado qur'aan ayuu akhriyey kadibna diinka uu wado ayuu dadkii u sharxay nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku yidhi waxaad cahdi igula gelaysaan ubaayicukum calaa an tamnacuunii mima tamnacuuna minhu nisaa'akum wa abnaa'akum cahdi waxaad igula gashaan inaad iga difaacaysaan ood iga mancinaysaan waxaad carruurtiina iyo dumarkiina aad ka difaacdaan ballan ma igula gelaysaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam bara ibnu macruur saxaabi la yidhaahdo nebiga qacantuu qabtay markaasaa waxa uu yidhi nacam haa waaladii bacahaka bilxaqi nebiyan ilaaha nebinimo kuu soo diray baan ku dhaarannee lanamnacannaka mimaa namnacu usuranaa carruurtayada iyo dumarkayaga waxaanu ka difaacayno ayaanu kaa difaacay rasuulkii ilaahayow fabaayicnaa yaa rasuula allah nala baayactan cahdi iyo ballan adag nala gal nebi alla waanu ku difaaci waanu ku soo dhowayn ku dayici mayno sidii reer daa'if ay ku yeeleen fanaxnu abnaa'u lxarb dad dagaal u saaxiiba ayaan nahay rasuulkii ilaahayow warisnaaha kaabirin can kaabir abka ab ayaan dagaalka ka dhaxalnay waanu ku difaaci waanu ku ag joognaa rasuulkii ilaahayow ballan adag nala gal isagoo hadalkii wata baraa ayaa waxaa soo booday abulhaytham ibnu tayaan ayaa soo booday tayhaan waxa uu yidhi rasuulkii ilaahayow rag baan meesha isku haynaa yahuud haddii ballankaa adag aan kula galno maanta oon yahuudda ballankoogii aan u goyno inay ku dilaan bay rabaan inay ku xumeeyaan bay rabaan rasuulkii ilaahayow oon ka soo hor jeesanno yahuud oo ilaahay kuu gargaaro oo diinkaagu uu muuqdo oo meel walba uu gaadho ma laga yaabaa inaad hadhow tole qoomkaagii iyo dadkaagii aad ku soo noqotid ood naga tegtid annaga nebigu wuu qoslay calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi bali dam addam
dhiiggiina haddii la yaaciyo waa anuu dhiiggayga la yaaciyey haddii wax liga dumiyo waa anuu wax laiga dumiyey ana minkum wa antum minii anuu ininkaan iniga mid ahay ininkuna anaad iga mid tihiin uxaaribu man xaarabtu kaad la dagaalantaan waa la dagaalami buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kaad nabadgelisaanna waad nabadgelin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa kadib waxa uu yidhi nebigu waxaan inigula baayactamayaa inaad imaqashaan oo dhagaha ii furtaan wakhti walba ood i addeecdaan inaad wax bixisaan markaad wax haysataan iyo marka kaleba inaad isku daydaan inaad samaanta iyo wanaagga aad is-amartaan xumaantana aad iska reebtaan inaad dacwada aad dadka aad gaarsiisaan ood qof aynuga cabseen xaqa inaad ii gargaartaan ood ii hiilisaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaan inii imaado ood waxaad carruurtiina iyo dumarkiina aad ka difaacaysaan anna aad iga difaacdaan intaa nebigu markuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa raggii muslimiinta ahaa rag horey u islaamay bishii yani 11aad islaamay nebinimada ayaa booday cabbaas ibnu cubaadah ibnu nadla ayaa booday markay dooneen nebiga inay la baayactamaan oo ay qacanta u geliyaan ayaa waxa uu yidhi war u kaadiya ha baayactamina wuu adkaynayaa wuu u shircinayaa cashirka maad ogtihiin buu hal tadruuna calaa maa tubaayicuuna hada arajul ninkan waxaad kula baayactamaysaan maad fahanteen wuxuu u jeedaa hadalkiisa maad fahanteen wuxuu u jeedaa inaad kula baayactamaysaan ood ballan adag kula gelaysaan inaad la dagaalantaan ka cas iyo ka madooba hadduu la dagaalamo odayaashiina sharafta leh haddii la laayo ood xoolihiina la qaato inaad ag taagtaan mar walba xataa odayaashiina haddii la laayo haddaad hadhow tole marka odayaashiina sharafta la laayo lacagtiina la qaato aad odhanaysaan waan ka baxnay ballantii imikaba ka baxa buu yidhi imikaba sheega inaad ka baxaysaan arrintu waxa weeyaan qoorta la isgoynayaa arrintu ma fududa waxay ku yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow haddaan ballantaa adag aan kula galno yaa rasuula allah maxaa noo sugan annakana odna siin nebigu waxa uu yidhi aljanna jannada ilaahay fidii bay yidhahdeen qacanta rasuulka ilaahayo ballan adag baan kula gelaynaaye markuu nebigu uu qacanta u soo taagay ayaa waxaa soo booday ascad ibnu zuraara saxaabigii la odhanayay oo ahaa 27 saxaabiga ugu yar ayuu ahaa waa ninkii muscab ibnu cumayr dacwada la faafinayay madiina kiibaa soo booday nebigu qacanta qabtay calayhi salaatu wasalaam qoomkiisuu la hadlayay waxa uu yidhi dhegaysta safar dheer baanu ka nimid madiina waa 500 oo kilomitir safarku waxaan u nimid inaan rasuulka ilaahay aan soo dhowayno war haddaba ballantan aan la gelayno way adag tahay imikaba iska hubsada ballankaa adag rasuulka ilaahay wuu inoo iman doonaa gaalo oo dhan baa inaga soo horjeedsan ree maka oo dhan baa inaga soo horjeedsan carab oo dhan baan la dagaalami doonaa cajam oo dhan baan la dagaalamaynaa war arrinta iska hubsada may bay yidhahdeen rasuulka ilaahay waan la baayactamaynaa jaabir waxa uu yidhi waan istaagnay layn baan galnay rasuulka ilaahay baan qacan qaadanay calayhi salaatu wasalaam waxaan kula baayactannay inaan rasuulka ilaahay aan difaacno annakana janno aan gaadhno hadhowtoole labadii haweene markuu nebigu uu soo gaadhay nebigu dumarka ma qacan qaadi jireen calayhi salaatu wasalaam hadal buu kula baayactamay iyaga inaad diinta u gargaarayaan nebigu intaa kadib waxa uu ku yidhi 12 nin oo kafiil damiin iniga noqda soo doorta arrintaa aan ballantaa aan galnay 12 nin oo kafiil iniga noqda oo arrintaa damaano qaadaya inaad sidaa ballanta aad uga soo baxaysaan soo doorta buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam 12 nin ayay soo doorteen 9 nin waxay ahaayeen reer khasraj bay ahaayeen 3 waxa ay ahaayeen reer aws bay ahaayeen nebigu 12kii ayuu ballan adag la galay iyakiina inay u gargaarayaan oy qoomkooga
arrintaas siday u fulin lahaayeen ay ka shaqaynayaan ayuu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam. markii la rabo in la kala dhaqaaqo ee arrintaasi heshiiskaa la galay ayuu shaydaankii meesha arkay. ibliis ayaa arkay ballan adag in la gelayo, waa la kala dhaqaaqayaa. laakiin muxuu samayn? hadduu quraysh u tegi lahaa oo odhan lahaa meesha maxamed bay reer yathrib reer madiina ballan la gelayaan inuu u hijroodo oo hadhow toole uu difaacaan, waa waqti baa ka dhacay, waa la kala tegayaa. intuu shaydaankii orod isdhigayba buur koray, markaasuu dhawaaqay. waxa uu yidhi yaa ahla alakhaashib hal lakum min muxammadin wasabaati macah. reer qurayshay dadkan manaasisha yacni mina deganow, war arrin baa dhacday meesha, war baa jira. muxamed ballan wuxuu la gelayaa, dad buu ballan la gelayaa madiine ka yimid. qad ijtamacuu calaa xarbikum, waxay ku ballamayaan in ay inila dagaalamaanoo cahdi iyo ballan adag baa lagu gelayaa meesha, soo orda. markaasuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam. shaydaan tabcan qofuu iska soo dhigay. nebigu waxa uu yidhi kaasi aad maqlaysaaned waa shaydaankii, waa cadowgii ilaahay ee ibliis ahaa. nebigu waxa uu ku yidhi way inoo tahay la atafaraqanna lak, waan kuu cidloobi, way inoo tahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. kadib nebigu wuxuu yidhi orda oo noqda, odayaashii intayna toosin ku noqda oo seexda, subaxdam la soo toos. cabbaas ibnu cubaada ayaa soo booday, waxa uu yidhi waaladii bacasaka bilxaq, ilaaha xaq kugu soo diray baan ku dhaartee, haddii aad doontid nebi allow lanamiilanna calaa ahli mina gadan biasyaafina, waxaanu kala daali reer mina quraysh. haddii aad doontid rasuulkii ilaahayow seeftaydaan kala daalaynaa, waan la dagaalamaynaa. haddii aad doontid rasuul allah waan muujisanaynaa arrintayada. nebigu waxa uu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam lam nu'mar bidalik, arrintaa weli layma amrin inaan dagaal aan galo. irjicuu ilaa rixaalikum, meeshiinii ku noqda ayuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam. iska noqda buu yidhi. quraysh dabcan way maqashay warkii, waa la isku yaacyaacay, waa la isguuxaya, waxbaa dhacay. warkii maad maqlayseen? haa, rag baa ballan la gelaya maxamed. guux baa dhacaya marka. quraysh way isku hor ordaysaa. dhowr iyo 70kiina intay aaya ku noqdeen bay meeshii taambugyaashu tandhada ugu xidhnayd ayay iska seexdeen. odayaashii oo hurda, raggii mushrikiinta ahaa ayay ag seexdeen. quraysh miyay seexan? iyaku seexani maayaan. habeenkii oo dhan baa la guuxayay, waa la tashanayay. subaxdii markii waagii uu beriyey ayay yidhaahdeen na sii daaya, ilaayo han tagno meeshii tandhada ugu xidhnayd reer madiina. waa u yimaadeen, way dacwoonayaan, cabashay gudbinayaan. odayaashii reer madiina ayay cabasho u gudbinayaan. way yimaadeen odayaashii, duqoydii reer quraysh ayaa timid. waxay yidhaahdeen yaa macshar alkhasraj, reer khasraj baa la isku ohan jiray, waa aws iyo khasraj. waxaad timaadeen inaad soo cibaadaysataan, baad u timaadeen dhulkayaga, inaad soo xajidaan. waxaadna soo gaadhay war ninkan muxamed een ishayno inaad sir ahaan aad xalay ula kulanteen, ood ballan la gasheen si aad noola dagaalantaan ood u soo dhowaysaan isaga. wallaahi baanu ku dhaarannee ma rabno inaan inila dagaalanno. beeshiinaas iyo beeshayadu inay dagaalamaan ma rabno. dad aan isnaqaanno ayaa tihiin oo sharaf leh. dad waxaa tihiin masaalix ayna dhex marayso ayaa tihiin, masaalix ayna dhex marayso ayaa tihiin. safarka ka baxa maka ka baxa, markuu shaam ay ganacsi ay u wadaan, madiina sii maraan, madiine agteeda. marka waxay ka cabsanayaan in waddada loo joogsado oo maaragtay taasay ka cabsanayaan. marka waxay yidhaahdeen arrintaasi bal ka fiirsada, arrintii xalay aad samayseen waan ka xunnahay, waan ka soo hor jeednaa. odayaashu mushrikiintii waaweyneyd baa hadashay. dhowr iyo 70ka saxaabi way iska aamuseen, iyo kuma hadlayaan. odayaashii baa hadlo, waxay yidhahen wallaahi arrintaasi waa been, waa baatil. xalay waan iska hurudnay, wax dhacay male, waxba ma dhicin, waxaan ognahay ma jiro. maa kaana min shay,
wamaa calimnaah waxaan ognahay ma jirto oo dhacay. raggii asxaabtu way iska aamusan yihiin. waxay u yimaadeen cabdillaahi ibna abi ubay ibna salool ra'iisu lmunaafiqiin hadhow toole ninka noqon doona ayay u yimaadeen, waa ra'iiskii weynaa. arrintiiba u sheegeen arrintaasaan maqalnay, bal ka fikir. waxa uu yidhi haadaa baatil wamaa kaana haada, arrintaasi ma dhicin, arrintaasi waa been, wax dhacay ma jiro. qoomkaygu arrin ma gaadhi karaan, ma tashan karaan aniga la'aantay. see loo tashan karaa? xalay way wala hurdeen dadku, waxaan ogahay male, wax lagu dhaqaaqay male. waayahay qoraysh way rumaysatay arrintii, saasaa lagu dhaqaaqay. safarkii xajadii baa dhammaatay. qoraysh way hubsanaysay warkan xagguu inaga soo gaadhay, waa laysku yaacyaacaya weli. safarkii wuu iska dhaqaaqay. markii madiine uu usii socdo ayaa waxay ogaadeen in warkii soo gaadhay inuu xaqiiqo ahaa oo dhab ahaa oo ballan maxamed lala galay ayaa la ogaaday. xaqiiqo ka daba tagaa la yidhi safarkii gaadha, soo qabta raggii. waa la yaacay, laakiin safarkii wuu dhaqaaqay. laba saxaabi bay dhexda ku qabteen, sacad ibnu cubaadah iyo mundir ibnu camr. labada nin bay arkeen, labadii nin bay eryadeen. mundir isagu faras ayuu wato, way gaadhi waayeen, wuu u gooyey. sacad ibnu cubaaday soo qabteen, way soo xidheen, gacmihiisay luqunta ugu xidheen, way soo garaaceen. siday u soo jiidayeen ayay maka keeneen. meel tiiray ku xidheen, sheeg bay ku yidhaahdeen arrintii dhacday. wuu diiday inuu sheego. iyagoo garaacaya ayaa waxaa u yimid almuطcim ibn cadiy iyo xaaris ibn xarb ayaa u yimid. ninkii bay yidhahdeen ninkan hal iska daayo, ninkani waa nin sayida, dhibaataa ka dhici haddaad dishaan ee inaga daayay buu yidhi. uu ka sasaabay, way iska sii daayeen. iyaga oo asxaabtiina ay dhexda ku tashanayaan oy leeyihiin weerar ma qaadnaa oo ninkii ma soo furannaa, ayuu ka hor yimid isagoo oo socdo oo la soo daayey. taasi waxay ahayd ballantii la odhanayay baycat alcaqaba athaaniya, ballantii nebiga lala galay calayhi salaatu wasalaam ee labaad weeyaan. nebiga in loo kaalmeeyo 72-ka ayaa nebiga ballan la galay. madiina la tegaya haddeed, asxaabtii maka lagu dhibayey madiina u hijroonayaan, waa la soo dhowaynayaa. nebigu heshiis buu la galay in hijradii xabash madiine loo bedelo, madiine la tago, madiine la buuxiyo, uu nebiguna iman doona calayhi salaatu wasalaam. waa waddankii islaamkii ugu horeeyey ee la dhisayey weeyaan, ee lagu aasaasayay diinka islaamka. waxay bilaabeen muslimiintii inay hoos ahaan u hijroodaan. waxay ka tegayaan xoolahoogii, guryahoogii bay ka tegayaan, qaarkood carruurtoodii bay ka tegayaan. qof walba intuu hijroon karayo inuu baxsado ayuu isku dayaa, uu diintiisa uu la baxsado, uu madiine u tago. arrinta hijradu wax fudud ma ah. ha soo qaadanno tusaale ama laba tusaale. dadkii ugu horeeyey ee hijrooday waxaa ka mid ahaa abu salama. wuxuu u hijroonayaa madiina. mar hore wuxuu u hijrooday xabash, uu ka soo noqday, hadda wuxuu u hijroonayaa madiina. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi asxaabtiisii, ninkii karaya ha u hijroodo, ha u baxsado xagga iyo madiina. abu salama wuxuu bilaabay inuu diyaargaroobo. waa isaga iyo haweenaydiisii umu salama iyo inankiisii. markii uu safarkii uu diyaarsaday, uu dhaqaaqay radia allaahu canh, ayaa waxaa qabtay isagii abu salama haweenaydiisa tolkeed. war adu waad naga tegays, inaad baxsatid baad doonaysaa. inantayada xaggeed geen bay yidhahdeen, kuma ogolin inaad maka aad ka saartid. naagtii bay la hadheen, umu salama iyo ilmaheygii ayay la hadheen. labadan kaa la hadheenaa bay yidhaahdeen. abu salama tolkiiba xaggaa ka soo booday, iyakuna arkay. waxay yidhaahdeen haddaad gabadhiinii aada la hadheen, wiilkani waa wiilkii inanka iyagu uu dhalay, la hadhi maysaan. gabadhiina la hadha, annakuna wiilka yaga iyo inankiisa baan la hadlay. ilmihii bay bilaabeen inay kala jiitaan.
ilmihii yara annagaa qaadan iyo annagaa qaadan annaka abu salama uu daawanaya islaantiisii way daawanaysa waxay qaban karaan male waa jaahiliin waa rag waaweyn oo xoog waaweyn oo islaamka aan waxba ka garanayn oo gaalo ah ilmihii yaraaba hortoodii lagu jiidanaya annagaa qaadan annaga waa laba qabiil waxaa kala jiidanaya iyagoo arkaya ayuu ilmihii yaraa gacanta u go'day subxaana allah gacantii qaar baa gacantii la tegey intii kalena way jiiteen ummu salama keligeed tolkeed baa qaatay abu salama iyo ilmihii oo gacan go'anna tolkii kala qaatay xaaladdaasay ku sugnayd in sanada way ooyeys way murugoonaysa maalin walba waxay imanaysay meeshii ilmaha yar lagu jiidanayay xaggaasay ku ooyeysay markii dambe way ka naxeen waxay yidhaahdeen ilmahayga yaraha loo celiyo odaygeena abu salamana wuu baxsaday markuu arkay xaaladdu xaggay taaganta isagoo diinkiisii buu la baxsaday xagga iyo madiina ayuu tegey ilmi yaraha gacan go'an ayaa loo soo celiyey umu salama orasocaa la yidhi odaygaagii ka daba tag may sii joogjoogine safarkii intay hore u diyaargarowday ayay dhaqaaqday radia allaahu canhaa dariiqana waxaa ka helay nin la odhanaya cuhmaan ibnu طalxa oon weli soo islaamin lakin wuu islaami doonaa gadaal ayaa arkay markaasaa wuxuu ku yidhi xaggee tegaysaa waxay ku tihi madiinaan tegayaa odaygaygaan ka daba tegayaa umuna qof kula socon may anaa ku sii dhowaynaya wuu kaxeeyey isagaa sii dhoweeyey marka arrintu hijradu ma fududayn diyaarad lagu tago meel ma ahayn baabuur la kaxaysta maahayn waa safar waxaa laga leeya waa 500 oo kilomitr raashinka dhexda kaaga dhammaan xayawaanka dhexda kugu cuni waddadu way dheer tahay waa haweeney keligeed bay socotaa waa madow dhulku safarka saani looma garanayo suhayb arruumi waad garanaysaan radia allaahu canh suhayb wuxuu soo galay maka isaga oo faqiira nin ganacsiga yaqaanuha tijaarada madiina maka ayuu ka bilaabay inuu ka shaqaysto lacag badan ayuu helay markii uu doonayay inuu hijroodo xoolihiisiibuu meel ku aastay isagoo hijroonayay quraysh qabad waxay ku yidhaahdeen ataytanaa sacluukan xaqiiran waxaad noo timid adiga oo faqiira oon waxba haysan baad noo timid fakahura maaluka cindanaa maalkii baa kuu batay meel sarena waad gaadhay ma waxaad doonaysaa intaad lacagtii aad qaadatid inaad aayar naga tegtid ayaad doonaysa xaggee tegi wallaahi kuma daynayno amaa lacagtan kaala hadhaynaa baa waa lacag doonaya waxa uu ku yidhi ara'aytum in jacaltu lakum maali haddaan lacagtaydii oo dhan ini siiyo bal ka warrama ma iska kaydaynaysaa wuu isfuranayaa diinkiisuu la baxsanayaa radia allaahu canh naftiisa ayuu badbaadinayaa ilaahay dartii waxay ku yidhaahdeen haa haddii lacagta aad soo shubtid oonu ku daynaynaa waxau idhi ina mariya lacagtii buu tusay xaggana ku aasanta way iska daayeen nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa loo waxyooday oo loo sheegay in suhayb arruumi inuu naftiisii uu ku iibiyey uu lacagtii u bixiyey uu ilaahay dartii u soo baxay nebigu dariiqu ku sugayay calayhi salaatu wassalaam markuu soo baxay suhayb wuxuu nebigu ku lahaa rabixa suhayb rabixa suhayb suhayb wuu liibaanay wuu iibsaday janno iyo khayr buu iibsaday saasuu lahaa nebigu calayhi salaatu wassalaam asxaabtii rag badan baa marka safarkaas ayaa loo diyaargaroobay hijradaas ayaa loo diyaargaroobay rag badan baa baxaya abubakar ayaa ka mid ahaa dadkii diyaargaroobay ee doonayay inuu baxo markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam u kaadi abubakarow calaa rislig u kaadi buu nebigu ku yidhi waxaan rajaynayaa in la ii ogolaado inaan kula safro hijrada maad rajaynaysaa buu yidhi rasuul allow in adigana lagu ogolaado inaad hijrootid haa buu nebigu yidhi abubakar wuxuu sii diyaariyey 2 hal ayuu sii diyaariyey oo ku safraan wuu sugayey 4 bilood buu sugayey quraysh waxay maqashay haddeed in rag badan ay hijroodeen oo madiine ay tegeen marka hore madiina waxaa la iska eegayay xabash bay ahayd iminka safarkii waa la leexiyey hijradii waa la leexiyey madiina la tegaya haddeed xaggaasaa loo diyaargaroobay aws iyo khasraj ayaa soo dhowaynaya aws iyo khasraj waa dad dagaalka lagu yaqaano dagaalka waa lagu yaqaanaa
warrag dagaalimiya ta kale madiinadan ay tagayaani waxay ku taalaa meel istiraatiijiya ayay ku taalaa oo waxa weeyaan waddadan markii quraysh ay safarka ay galayaan ay shaqaysanayaan xoolahoogoo dhan waxay soo maraan madiina ay soo maraan ta kale محمد meeshaasi haddii uu tago maxamed waxaa lagu yaqaana calayhi الsalaaةu wasalaam nin fasaaxa leh ayuu ahaa dadkan oo dhan uu qancin inuu madax u noqdo ayay ka cabsanayaan arrintu waa khatar quraysh way isku timid way tashanayaan war meesha khatar baa inagaga soo socota madiine la yidhaahdee yathrib meeshaa la yidhaahdo khatar baa ka soo socota sideen uga hor tagnaa intuuna maxamed meesha una tegin waa la isku yimid odayaashii oo dhan baa israadsaday khatar baa soo socotaa la yidhi aws iyo khasraj baa maxamed iyo qoomkiisii soo dhowaynaya aws iyo khasrajna dagaal baa lagu yaqaanaa meesha safarkeennaa mara waa meel istiraatiijiya oo maarata khatar baa ka imanaysa maxaan yeelnaa baa la yidhi caasimad bay dowladdii ay muxamediyu yeelanaya dowlad buu yeelanaya waxay rabaan inay ka hor tagaan maxamed inuu dowlad yeesho waa la isku yimid sanadku markii uu ahaa 4 weeyaan 4 ayuu nebi inta nebinimadiisa laga jooga nebiga calayhi salaatu wasalaam waa 4 sano waa 4 jir nebigu yacni madaxuu la galay marka 4 jir waa bishii safar yacni muxaram uma ka soo wada sanadkii safar waa bishii labaad barlamaankii quraysh ayaa isku yimid shir degdega ala isku yimaadaa la yidhi qabiil walbi waa inuu yimaado khatar xoog laa timid meesha qabiil walba waa in la isku yimaado qabaa'ilkii quraysh ay ka koobnayd oo dhan ayaa meesha isku yimid reer bani makhzuum waxa uu yimid duqoogii weynaa abujahal ibnu hishaam ayaa ka soo qayb galay reer bani makhzuum buu u socdaa qabiilka qabiilka la yidhaahdo bani nowfal ibni cabdimanaaf jubayr ibnu muطcim iyo tucayma ayaa u socda iyo xaarith ibni caamir iyo reer bani cabdishams shayba iyo cutba ayaa u socda qabaa'ilkii oo dhan reer cabdidaarna waxaa u socda nadr ibn alxaarith ayaa u socda reer bani cabdi asad abulbukhtar ibnu hishaam reer bani saham nabiih iyo munabbih qabaa'ilkii oo dhan ayaa yimid umayana wuxuu u socdaa reer bani jumux buu u socdaa qabaa'ilkii oo dhan baa isku yimid meesha waa shir loo dhan yahay albaabadaa u xidhan lama rabo warku inuu faafo waxaa la rabaa war khatar leh in la soo saaro meesha waxaa ka soo qayb gala shirkaa weyn ibliis shaydaankii qof buu isku soo ekaysiiyey ma rabo warku inuu si yar fudud u dhaafo ibliis baa meesha yimi isaguna way garan waayeen oday da'a oo garhweyn cimaamad buu soo duubtay uu tukubaya warduqanna waa ayaa la yidhi mani sheikh waa oday buu yidhi reer najdi baan ka socda anna waxaan arkay war culus inaad waddaan oo khatara waxaan doonayaa war anna inaan isiiyo muhiima ahlan soo dhowow waa la soo dhoweeyey barlamaanku kaga qaybgalaya shaydaankii maxaad u malayn shirkii baa albaabada loo furay dadka kale waa laga mancinaya intaa mooyaane shirkii baa la furay haye maxaad haysaan meesha khatar baa ka soo socota maxamed khitadii aan wadnay ee xabash ahayd wuu bedelo madiinana waa meesha khatarta ah toddobaadka dambaan ka hadli doona madiine nebigu muxuu u doortay calayhi salaatu wasalaam meeshan war baa ka soo socda ee maxaa yeelnaa baa la yidhi seen uga hor tagnaa safarkan seen u baabi'innaa tala keena oday abulaswad la yidhaahda hadlay waxa uu yidhi dhegaysi aniga ra'yi baan hayaa ra'yiga aan hayo waxa weeyaan in moxamed aan waddanka ka musaafirino waxba inagama gelin meeshuu doono ha tago dadku doono heshiisaa la galo innaku hana is adkayno han ku heshiino arrintaa moxamed waddanka han ka musaafirino
إبليس بهالله هذا ما هبيد وحاسة تلمّا تكهني فكوري لا والله ما هذا لكم بالرأي أرنتا سماء المسور دوين يقول ورنين كان ما أركيسان محمدا وهذا المعايا وشيكم معايا هذا الكيس دك وقنعيا تتكنوا سوجيته هدد مسافريسان مدينة تجي تتكي أردن بوقفصن دولة بوكدسي ويرر بإنه قادم حد يلسان والله هو إني حرين أو ودن كانوا فرن حد يلي دون تمركز قارت إني ولا جوين وإبليس هو حماشة تلنيا أبو البختري أيا سوبودي أنيجا الرأي هي بوري احبسوه في الحديد قفصا سمينه قفص بان سميننا وانكو حرينا با مال يعني سميننا حاجة سانكو حرينا الباب كان وانكو حرينا سيدي رجي زهير والنابغة رج بدن أو أي هراء وجري شري تاريخ ذا سيدي لوج جلي أي قفص كأقول لحدنتان سيدي هالسمين بوجري رجع نكان سوق قبل نقفص عنو سمين أكو حدنا حقها كوشر إلا وكذا ما نيو تد كان يوسف بحين إبليس بس هو بودي ما كان الرأي بودي إني مرة عسني بودي تانا ورئيسه قفص كوشر دواقي سقو قفص كوشر أيو دواقي markaasay dadku qaadanayaan ra'yigiis aamusi maayo in yar aamusi maayo uu dhawaaqi qafaska dhaxiisu ka dhex dhawaaqi tolkii baa soo boodi dagaal baa dhici rabshad baa dhici meesha taasina ra'yi ma habuuli arin kale raadiya dhinac walba laga rogay arinta maxaa yeelna maxaa sameeyna hadaba midba ra'yi buu kana may buu yiraahdaa may ra'yi ma haysan odaygii Abu Jahl ibn Hisham الشيطان كيوينا فرعون هذه الأمة أيا سوبودي وحولي والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد أرمبان هيا رأي بان هيا أين ولي كيني أيان هيا وما حبيت يا أبا الحكم ما هذا هيسا وحولي وإنان قبيل والبا قبائل كين عرب أما قريش وإنان قبيل كي والبا aan wiil yar ka soo dooranno oo quwad leh xoog leh wayna ka soo dooranno seefna waa inuu dhiibno qabaa'ilka carab oo dhan kadibna waa inaan Muhammad aan raadsanno ama aan guriga ugu tagno isagoo hurda mar quraata seefta lagu wada dhufto mar quraat tolkii ma carab oo dhan bay la dagaalamayaan ama ma Quraysh oo dhan bay la dagaalamayaan ma la dagaalami kari maayaan diyada iska aqbalayaan faran baan u bixinayna marka diyada waan soo ururayna boqol neefta soo khalaas waan siinayna wax alla wixii ay doonayaan tahayeen wara'yi إبليس بس بودي هذا الرأي لا أرى غيره والرأي وحكان بيقولين كأس والله بالشيطان الوضوء رأي بو كان والله وكل رأسنا هبيولي ديجي سو قريش أردنها كفافو ديجي محمد قريش أردنها كباه بس تركيا لا دجالم يان مع عرب أردن بيلا دجالم مع قريش أردن بيلا دجالم دي أقبل يان تهيا لنا باليدي واي رجب على صاح حلي قبيل والبا waxaa laga soo qaaday wiil yar shaab quwad leh seef baa loo dhiibay af badan tala la gaaray arintaasi dumarka yar la gaarsiin warkii inaga faafin bas inako ma ku heshiinay caawa warka yaa la sii fogeynba caawa arinta la fuliyo gurigii nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaa la yimid hareeraha la wala joogsaday gurigii baa dhinac walba laga joogsaday ولا أتاكي قري ولا ويغاري نبي نو كتير عليه الصلاة والسلام إسلام مركب ملك جبريل بن نبي قويمت والله وحيودي وحلقوا يلي الباب كهرتي سالقوا شوقا الباب كهرتي يا محمد يا لقوا شوقا لا تبت هذه الليلة على فراشك عاوة قري قاقها السيحن فراش كاقا كسيحن بالليلي كبح guriga seexan caawo xaqana la raba marka seexatid waa lagu sugayaa waxay ku heshiiyeen sakh dhexe markuu hurda macaan ku jiro ee dadku seexdaan aayar guriga han furanno aan jabino aan ku dhufana la yiri
nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintaasaa loo waxyooday caawa waa lagu tashanayaa waa habeenkii yani caawa kale nebiga maantoo kalea loo waxyooday calayhi salaatu wasalam arrintaa loo sheegay caawa la yidhi caawa lagu imanayaa weli looma iman caawa lagu imanaya laakiin ha seexan baa la yidhi gurigaaga dhinac walba waa lagu weegaari gurigaaga waa dhinac walba laga joogsa in lagu dilaa lagu rabaa nebi allow caawa seexan baa lagu yidhi nebigu wuu dhaqaaqay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tegey saaxiibkii abubakar sadiiq ayuu u tegey wuxuu u tegey wakti duhura waktiga laseeska la seexdo cadceeddu aad u kulush waa maka dhulku kululya ayuu nebigu u tegey isaga oo cimaamadiisii duuduubtay wejiga qariyey intaa indhihiisum ay muuqdaan waxaa aragtay ina abubakar sadiiq ayaa aragtay nebiga oo soo socda caaisha ayaa waxay tidhi nebiga ayaan aragnay isagoo oo soo socda wakti duhura markaasaan ku idhi aabbahay waa kan rasuulkii ilaahay soo socda waktigan markaasaa waxa uu yidhi fidaa'un lahu abii wa ummii hooyada iyo aabbahay lagu furay rasuulka ilaah wallaahi saacaddan wuxuu u yimid war culis baa ayuu wadaa nebigu wuu soo galay calayhi salaatu wassalaam war buu wadaa nebigu waxa uu yidhi akhrij man cindak dadka ku ag jooga saar war baan ku wadaay waxa uu yidhi abubakar inamaa hum ahlu waxa kula jooga waa ahalkaagii rasuul allah waa caaisha iyo asmaa iyo kula jooga carruurtaadii waa kuwa islaamay dad kale kulama joogo nebi allow nebigu waxa uu yidhi waxaa la i amray inaan hijroodaa la i amray wuxuu yidhi asuxbata yaa rasuul allah ma ku raacaan rasuulkii ilaahayow nebigu haa buu yidhi waadi raaci abubakar farxad buu la ooyey caaisha waxay tidhi wallaahi maan garanayn qof inuu farxad la ooyo ilaa aan aabbahay arkay farxad isagoo la ooyaya rasuulka ilaahay baan raacaya calayhi الsalaatu wasalaam laba hore u soo diyaariyey laba raaxiluu soo diyaariyey kadib nebigu gurigiisiibuu dib ugu soo noqday calayhi الsalaatu wasalaam raggii way diyaar garoobeen 11 nin ayaa la diyaariyey waxay doorteen ma taqaanaa abujahl ibnu hishaam odaygii weynaa arrinta keenay waxaa la yidhi waa ina yar baa tahay quwad baad leedahay gal meesha abujahl xakam ibn abilcaas cuqba ibnu abi muciid annadr ibn alxaarif umaya ibnu khalaf zamca ibnu اlaswad طucayma ibnu cadiy abulahab odaygii baa ku jira isaguna ubaya ibnu khalaf nabih ibn alxajaaj iyo walaalkii munabih ibn alxajaaj 11 ayaa la doortay sak dhexe markay tahay ayaa gurigii la yimid meeshii baa lagu sugayaa ceeb bay ahayd carabta guriga looma dhaco guriga haddaad doonaysid albaabka jabso saasay caadadooda ahayd laakiin in loo dhaco waa albaabka agtiisaa lagu sugayaa waxaa la sugaya dadkii waa seexdeen maxamedna guduhu ku jiraa bes waxay leeyiin dadku markii hurdo macaan uu galo ayaan ku dhufanaynaa waxay isleeyihiin khalaas maxamed maanta cidlaan ka hadlay ma garanayaan maxamed inuu ilaahay ilaalinayo abujahl baa meesha raggii hormarmaraya isagoo oo isqaadqaadaya ayuu raggii dhex maraya waxa uu ku leeyahay ugu sheekaynaya nebiguna guduhu ku jira ma maqlaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam raggii oo saf ku jira laba leen ku jira ayuu dhex maraya wuxuu isleeyahay maanta khalaas arrintu wayna khaawseen way arkeen nebiga oo ku jira meesha ayay arkeen waxa uu ku leeyahay ina muxammadan yazcumu annakum in taabactumuuh calaa amrihi maxamed wuxuu sheeganayaa haddaad raacdaan diinkiisa ood rumaysaan inaad carab iyo cajamkaba aad boqorro u noqon doontaan haddaad dhimataan ini la soo saari doono oo janni iyo aad geli doontaan haddaad diiddaanna ini la qali oo naarni la gelin ayuu sheegayaa maxamed way qosqoslayaan iyakuna way ku qosqoslayaan nebigay dacayadaynayaan calayhi الsalaatu wassalaam ilaahay waa kii nebiga ku laha waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru اllahu wallahu khayru اlmaakiriin
ku dhagrayaan nebi allow qorshay kuu degayaan nebi allow waxay ku tashadeen miyaan saarnaa maan xidhnaa maan dilnaa ilaahayna wuu la socdaa warkooga iyo xaaladooda nebi allow annaga kula jirnaa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu cali buu u yeedhay oo la joogay gurigiisa waxa uu ku yidhi caliyow lagu dili maayo ilaahay baa ku ilaalinaya furaashkayga seexo go-ayga huwo caliyow ammaano dad badan ii dhiibjee baa jirta nebigu ammaanada waa ilaalin jiray ammaanadaa dadka u celi hebel intaasi hebel kale intaasi ammaanooyinkaas celi ammaanada muslimka ammaanada wuu ilaaliyaa anu waan bixi adna ilaahay baa ku ilaalinaya lagu dili maayo meesheedana furaashkayga seexo furaashkiisuu seexanaya cali naftiisu ku huraya badbaadinaya nebiga calayhi الsalaatu wasalaam nebigu calayhi الsalaatu wasalaam amar ilaahay ma cabsan ma qarqadhin xageen ka dhacaa daaqadda eeg ma jirto ilaahay baa maciisa ah uu la jiraa ilaahay baa la jira subxaanahu wa tacaala albaabka hor joogaan maxamedow fur albaabka dhaxmar baa la leeyahay gaalada abujahal oo hanjabaya oo meesha joogo oo seefahay wada haystaan mar quratay rabaan inay albaabka ay furaan oo ku dhuftaan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam bax baa la yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuu soo baxay bismi اllah ciid buu qaaday dhag ba raggii indhahay kala hayaan wayna hurdaan nebigu waa soo dhex maray iyaga oo hurda wuxuu akhriyayaa wajacalnaa min bayni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan faأغshaynaahum fahum suuratu yaasiin buu akhriyaya fahum laa yubsiruun ma arkayaan waxba nebigu wuu dhex maray mid walba is hortaagay ciid buu madaxa kaga shubay mid walba ciid buu madaxa kaga shubaya ku dheerdheerayaa nebigu ciidda qaado ciidda qaado ciidda qaado gebigood indhahay wala hayaan way eegayaan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam nebigu waa dhaqaaqay wuxuu isa sii daayey ilaa iyo gurigii abubakar ayuu isa sii daayey meeshii iyaga oo sidii u fadhiyo oo wala taagan ayaa waxaa u yimid mid kale oon ku jirin oo laakiin warka ogaa albaabkana uu furan yahay kiiba albaabkii eegay meeshu inuu faaruq tahay buu arkay qofbaa laakiin hurda u gartay nebigu inuu baxay inuu meesha cali joogo ayuu gartay raggii uu la hadlay waryaadaheen uu tootoosiyey waryaadaheen indhahay kala hayaan war maxayna helay maxamed niina sixray ciidda baa ka daadanaysana wayni dhex maray raadkii bay arkayaan wuu ini dhex maray ciidna wuu inagu shubay xaggeed ku maqnaydeen may way is-eegaan waa maxay ku hadlayaan albaabkii bay qaawseen wuu hurdaa bay waa kana arag ma hurdo albaabku wuu furnaa seefihii bay qaateen way la boodeen go-i bay qaadeen waaba cali bay soo jiideen sheeg xagu tegey war wuu baxaan war mahayo inuu baxay weydiiya cali bay jiideen oo kacbadda agteeda ayay la tegeen intay garaaceen sheeg ma garanaya buu yidhi anigu nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam gurigii abubakar buu isku sii daayey safarkii waa la sii diyaariyey raashinkii waa loo sii diyaariyey caaishii iyaa jooga meesha cabdiraxmaan ibn abubakar iyo cabdillahi ibn abubakar iyo waa loo diyaariyey xamaantii isla markiiba safarka uu baxay abubakar sahaydii buu qaaday u fiirso abubakar sadiiq radia allaahu canh abubakar maalinkuu islaamay waxay yidhaahdaan wuxuu haystay lacag 40,000 oo dirham ayuu haystay maanta wuxuu haystaa ma taqaanaa 5,000 oo dirham buu haystaa 5,000 oo dirhamba ii xidha buu yidhi rasuulka ilaahay yuuna dariiqa ku cidloobin yuuna gaaji ku qabin rasuulka ilaahay safarka wuxuu rabaa nebiga inuu badbaadiyo 5,000 xidha buu yidhi 5,000 baa loo xidhay safar dhigtu saartay carruurtiisa ayuu uga tegey ilaahay abubakar aabbihii oo da ah ayaa meesha fadhiya wuu la hadlo waxa uu yidhi caaisha ku yidhi aaway aabbihiin muxuu iniga tegey markaase waxay tihi lacag badan buu nooga tegey markaase waxay tihi wuxuu ku yidhi aaway lacagta u indhalaa odaygu lacagtay tus intay kiish ay soo qaaday joonyad ayay dhagaax iyo waxooga buuxisay markaasay taabasiisay oo haddana lacag badan buu ka tegey iska socdo sahaydii buu qaaday safarkii u fiirsan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam sanadku waa 14 baan nidhi
وبش السفر ودقاق النبي عليه الصلاة والسلام يعني بش سبتمبر لح بقول إيا لبي اللباطن أي سنة ميلادية أيو شري يوها الباب دنب قريق أبو بكر الباب دنب كبحين وحي قرانيان إني قريشي هدي أي نبي الرادين قريق لقوسو أردي أبو بكر مركب مدينة لتجيو وقوية وضد دار الشام أي لقاده وقوية نبي وحى ويري قريش حقا أي وقوية أي اسكسي دينا يعني سفر هنو قوينا بوري النبي ذكي ومسكح بدنيها عليه الصلاة والسلام إلهي بقى وحيونية وضد أقو بالي حقا أي وقوية بقى كعيان كونفور أكعبوا النبي عليه حقا يمن أي أكع النبي يعني حقا قبلة أيام مدينة مركي لتجيو لنا قبلة الله كعاه لنا عن كلو النبي أقوي عليه الصلاة والسلام لأنه قريش مركي الرادين حقيقة الرادين حق أسأل إسكوسي دين مدينة تجي كجارة الله طريقة صور رمبلا ولا مري ولا الرادين النبي قلنا وأقوي عليه الصلاة والسلام لنا إيو كونفور أيو قوي وصوص عند النبي عليه الصلاة والسلام سجى يا أبو بكر وحي السعودان با وحي وكعب سد النبي قرات كوجا إن لا جرى وحو بلابا إنه فراها هراء وكسعد أبو بكر وكوده هذا فراها هراء كسعد فراها هراء كسعد أنت راشين كأمة وطن ولا بدودة سيد السعودين النبي عليه الصلاة والسلام لغها لقوا كل اليهي بياك قال النبي عليه الصلاة والسلام لغيس بورتي مركي سو غاري ما دقاقي كراي النبي ما دقاقي كراي ما سكون كراي بورتنا waa dhagax madow aad ba u kulush qolalkuna wuxuu soo jiitay cadceeda aad ba u kulush buurta la yiraahdo Jabal Thawr ayay soo gaareen oo 5 mayl yani dhinaca koonfur ka xigta Maka xaggi bay soo gaareen buurtu way dheertay hubba ku dhax jira xagga sare أبو بكر با نبي أفر صدق ويقول النبي الله صفر دبر كيجا أنا كفشينية أبو بكر أفر رضي الله عنه نبي إلهي أبو حنباري بورتي بلا فولي نبي يقول حوالي شيء لا أبو بكر قدام بداف ما سو عنكر يا النبي هجي بي مادين هجا أكتي يسيب النبي جوتشي عليه الصلاة والسلام نبي يقول حضاني إنه قالوا هجا وكاد بيقول رسول الله جو أبو وطا أبو بكر هنكا أجابوا النبي الله هجا قد كيبو صاق علي أبو بكر وحو أركمالا بدن أو دلدلال أباسي إيو مساس إيو حباق على ماش جو يسيبوا الدلدلاعي نبي يقول الدبد بكو سوغيا كل بمال بكو أوضا انتو نجح قادو كل بمال بكو أوضا جو إيبات نماضي سودو كل بمال بكو أوضي لابد دلال بحري بس نبي الله صاق البير ماشي بحاله وفيقي وهجاشي نبي الله صاق البير نبي جبا صاق عليه الصلاة والسلام لبدا الضلال أيو كعب صدي إنه مسكجا صبح أما أباسه والنبي قعنته لوجه يسيبه في دي نبي يقول حاجة نجاسة حرفتها ودالنتها رسولك إله ربت هذا كسيح لبدي سيسول أيو كقاضي لبدي جد فرس أبو بكر الصديق رضي الله عنه لبدي كقاضي أنا جاي قليل نوعي قليل رسولك إله بدباد بهال أبس حناخذه ماشي بي كقلينتي أبو بكر الصديق وحنون صديق ما دوني إنه دقاقه هذا دقاقه النبي قال سيجم أيه أي توسين وأتكيستي أبسك كقلينتي ما أتكيست ولا إن قيل هذا تبيت أنا سفريك وأتكيست رضي الله عنه نبي إلهي ما دوني إن أطاس وأتكيستي لو تيكل هذا لقى قليني وأتكيستي لكن قول للمكلول يا كدعي نبي طبعا كدعي نبي توصي عليه الصلاة والسلام مركز النبي يقول ما لك يا أبا بكر محاكو هلي محلو يسا مركز وحا ويري فداك أبي وأمي هو يدي يا أباك وغفرت الرسول كي إلهي والإقليني أحبال قد كاسل لبدا يلي قليني لبدا قد
nebigu wuxuu ihi tus lugahaaga bismi illaahi raxmaan raxiim wuu mariyey isla markiiba waa la caafiyey ilaahay waa bogsiiyey meeshii abubakar hoggii buu ku qabanayaa abeese ma qalini karayso nebiga candhuuftiisaa la mariyey calayhi salaatu wasalaam barakadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ducadiisii wax gaadhaya male abubakar waa murtaax u bogsaday garaacna mahay waxba nebigu intuu eegay abubakar ayaa waxa uu yidhi ilaahow abubakar ilaahow jannada ila geli abubakar ilaahow jannada ila geli abubakar aawa go-aagii buu yidhi nebi alla go-aagii ma arkaysid meelahanoo dhab ma ku wala oodee ilaahow abubakar jannada ila geli buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nebiga iyo abubakar 3 cisho ayay godkaa ku jireen ay ku gabanayeen habeenkii jimcihii habeenkii sabtidii habeenkii axaddii intaaba way ku jireen ina abubakar cabdillaahi ibni abubakar ayaa u keenayay warka in abubakar dharaartii wuxuu la joogaa quraysh meelahaasuu warka ka dhegaystaa habeenkiibuu soo ordaa wixii war ay quraysh ku tashanayso ayuu nebiga u keenay calayhi salaatu nebigu wuxuu rabaa isagu godkaa ku jira inuu ogaado maxaa wareegaya adduunka maxaa jira maxaa socda quraysh maxay ku tashanaysaa يعني مسلم هو إنه لا صعد واقعة ما حاجة المسلمين تلا جراء يوم وين قفوا لا صعدوا وجاهدوا وراك أدونك حاجة ما أنت مسلم يقول لي حاجة ما حاجة هذا كنت شان يسا نبي يقول إن أبو بكر بدري شري عبد الله ورك نوسور دقي سور شري ورك سور دقي سنة يا مركي قريش حتى أنا ورك لسور ديا نبي يقول كينا يا عليه الصلاة والسلام قريش وحاسة كنت شطي ما أنت حاجة سيد نجسوا واين حاجة نيد وربوحة ayuu u keenayaa caaisha waxay tii wuxuu ahaa walaalkay cabdillaahi ibn abubakar wiil yaro fudud buu ah oo muthaqaf oo aqoon badan ayuu ah warkuu geynayay waagi intuuna cadaana uu ka soo baxsan jiray oo markuu ku soo noqon jiray caaisha iyo asmaana cuntada u xidhi jireen warka cuntada u qaadi jireen dhumasho waxaa jiray caamir ibn fuhayra oo u shaqayn jiray abubakar adhi buu eegi jiray isaguna adhigaasuu la soo mari jiray meesha oo diraadkooga markay cuntada qaadayaan markii uu cabdillaahi uu warka geynayo meesha raad baa laga arki doonaa ma raadkaasuu sii mariyaa adhiga ku qarinayaa sii mariyaa uu soo mariyaa meeshaasuu maqribkiina ku yaro daajiyaa dadku iska eega adhig intuu neefka liso caanaha u geyn jiray caanuhu lisaa wuu u geeyaa sidaasay ku sugnaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar jumcihii iyo sabtidii iyo axaddii quraysh way waalatay waa la isku yaacay maxamed baa baxay aaway raggii meesha ku tashanayay ee raba inay dilaan sirteennii way fakatay meel walba dariiq walba oo madiine loo maro waa in la xidhaa la yidhi amar baa la soo saaray war deg dega dariiq madiine marayo oo dhan waa in la joogsado waa in la joogsado waa in la baaro maxamed waa inuuna madiine gaadhin waa la isku yaacyaacay odaygii abujahal ahaa uu isa soo daayey isagu gurigii abubakar buu yimid si xoogle u garaacay si xoogle ayuu u garaacay qab 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 asmaa baa ka furtay aaway aabbahaa buu ku yidhi waxay tidhi laa adri wallaahi ayna abi ma garanayo aabbahay xagguu tegey oday doqon u ahaayo waa hal dharbaaxo uu qaado dhabanka u geliyey xoog dharbaaxadii waxay sheegayaan culummadu xilqaddii ay xidhnayd ayaa ka dhacday xoog aaway aabbahaa ma garanayo xaggaasu ku garaacay quraysh meesha waxay soo dhigaysaa abaalgud maxamed ninkii la yimaada waxaa la siinayaa 100 halaad geela cascasa ayaa la siinayaa qaaliga ah abubakarna sidaas leeg ninkii la yimaada ama iyaka oo dhintay ama iyaka oo nool waa in la soo qabto mid walba wuxuu raadinayaa 200 oo halaad sidoo ku ilaa mid walba safety buu sifaystay waa la isku yaacay meel walba laga raadinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar waxay socdaan markay meel walba ay ka raadiyeen meel walba way ka waayeen ayaa sida u socdeen ayay bal meelahan aan ka dayno meelahan ku dhumanayo
way soo dhaqaaqeen boortii uu nebigu ku jiray calayhi الsalaatu wasalaam iyo abubakar ayay kor yimaadeen bal godka ka daya godkana shimbir buu ilaahay ag dhigay oo ag joogta xamaam godkiina caaraa fooshay oo qarinaysa markaas eegana war godku waa god raagay ma arkaysaan caarada iyo waxaan inaga daaya baa la yidhi meesha abubakar baa sidaa madaxuu kor u qaaday markaasaa wuxuu arkayba waa raggii abujahal iyo meesha taagan wuu ooyey naftiisa uma ooyayo rasuulka ilaahay in la dilo oo dacwadan ummadda gaari weydo rasuulka ilaahay oo la dilo ayaa wax walba ka weyn rasuulka ilaahay maa la dili markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah wallaahi midkood hadduu hoos inoo usoo fiirsado go'a godka uu hoos usoo eego meesha waxaa jira yacni caaradii baa moogta qarinaysa hadduu caarada uu sidaa us yaro eego wuu ina arki buu yidhi rasuulkii ilaahayow maxaan yeelna rasuulkii ilaahayow nebigu waxa uu ku yidhi uskut ya abaa bakr aamus abubakarow maa dannuka yaa abaa bakr biithnayni allahu haaliثuhumaa maxaad u malayn abubakarow laba ilaahay u saddexeeyo maa loo dhowaan laba ilaahay u difaacayo laa taxzan ina allaha macana ilaahay baa inala jira hamruguun ilaahay baa ilaalinaya abubakarow meeshii bay intay eegeen ayaa waxa ay yidhaahdeen wallaahi meeshani waa laguma jiro inaga dhaqaajiy yidhahdeen meesha way dhaqaaqeen marka way ka soo dhaqaaqeen nebiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo nebigu uu iska tukanayaa meeshuu iska tukanayaa uu iska degan yahay nebigu ma cabsanayo ma qarqarayo nebiga ilaahay maxaa sugaysaan waktigii wuu dhacay way adag tahay nebiga inaan godka kaga tagno mayna hayn maya ogow nebigu godka 3 cishuu ku jirayaa toddobaadka dambaan kasii qaadaynaa nebiga godka ku jira calayhi الsalaatu wasalaam godka ka baxaya waa inoo toddobaadka dambe hadduu alla yidhaahdo wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa sayyidina maxamed asalaamu calaykum waraxmatullah